sheekadan soo socota dhagaystayaal waxaan ula baxay Nogob ilaa North America waa qiso ka soo bilaabantay gobolka Nogob ama Fiiq ee dhulka Soomaalida ee dalka Itoobiya soona gaadhay gobolka Alberta ee dalka Canada ee waqooyiga Amerika waa qisada jacayl hari waayay hadimana reebay waa xusuus iyo waaya aragnimo garaad xoogaystay kullin gaxan wiilka ay qisadani ku saabsan tahay waa Cabdishakuur Qorone oo ay dhalinyaraduna ku naanaysto afmagaaxshe waa kan Cabdishakuur oo inoo soo kooba taariikh nololeedkiisa magacaygu waa Cabdishakuur Qorane Cali waxaan dhashay 88 kunti laakiin bil go'aan oo gaar ah lama hayo waxaan ku dhashay walaal deegaanka Soomaalida Itoobiya ama dadka yaqaano Soomaali galbeed gobol kamid oo la yiraahdo Nogob gaar ahaan buur dheer oo weyn oo la yiraahdo Dooya yaan ku dhashay waan gartay buurta Dooya ee gobolka Nogob ayaa 88kii ku dhalatay sideed u soo barbaartay ma nolol xoolo raacato ma beeraley mise tuulo iyo magaalo barbaaritaanka intaydii koobaad 6 jir ilaa iyo xilliga dhashay waxaan reer diri guura caadi reer Soomaali ah oo ari iyo geelle bay ahaayeen iyo lo waliba sidaas xasuusto reerku ilaa 6 jirkii waan ku soo gaaray nolosha baadiyaha marka wixii 6 jir ka dambeeyay waxaan u tagay oo nolosha inta kale ku soo qatan ku soo barbaaray walaalkay oo deganaa magaalada Goday oo asagoo hadda wadankeena ila joogo runtii aad aan u jeclahay intii soo koriya inta wixii ka dambeysay ay xagaas nolosheedii u wareegtay magaalada Goday marka ayaan dugsigii hoose kii dhexe iyo kii sare iyo kuleedkii koobaad baan ku qaatay waan gartay inta wixii ka dambeeyay deegaanka maxaa ku halkaas ka jira xafiisyada qaarkood baan ka shaqeeyay magaalada Goday iyo degmooyinkaba qaar xataa xilli maxaa ku dhahay degmo la yiraahdo degmada Beercaano mar baan ka soo noqday gudoomiyaha maxkamadda ee degmada Beercaano marka sharcigaad baratay marka wixii ka dambeeyay dii halkan uma imidan soo gal Cabdishakuur wuxuu tirinta maansada bilaabay isagoo da'yar oo xilliga ku jiray dugsiga sare waxa haleelay jacayl looran karo wuxuu haa jacayl didibka aastay oo wuxuu u qaaday gabadhay isku xaafad iyo isku iskuul ba ahaayeen aqoon durugsan oo walaalnimada isu lahaayeen waana halka meeshii ugu horeysay ee uu maansa ka unka waxay ahayd wixii koobaad ee aan wax ka sameeyay ama wax ka idhaahdo waad garanaysaa meeriso waxay ahaayeen ruux iska socod baradi iyo ruux talaabaradkii uu ku qofaa marka kulli meerisadaasi waxa laga yaabaa in qaarkood ay jireen waxa kama bedelin oo taariikhan sida uu hayay waxa ka mid ahaa dunidii qurxoonayd miduu doortay qalbigaygu midii aan dantayda u nacay darajadan yeeshay midii dulucda beerka iyo wadnaha deebta iga saartay midii aan u dib jiray habeenee cuntadu iiga degi weyday haddii ay idiiday mar hore dayre iga yeeshay samir aan dugsado aakharaan daar ku leeyahay damqashada xusuusta le qalbigu deyni kari waaye markaan door la naadaba maskaxdu way dilaacdaaye dakharka iyo xanuunkan qabana daawo loo waaye dadku iga shikiy oo cidlaan darin jiifay cadawga ku diirsaday ilmadan iga diladlayna iyaduna idiido hore dayre ee tiriya samir aan dugsado aakharan dar kulaad wuxuu ahaa wixii koobaad ee maansa ah ee afkayga ka soo baxa sida maansada ka muuqata gabadhaasi way ku gacan sayday Cabdishakuur inay la qaado jacaylka waxaanu ka war helay inay wiil kale xiriir la leedahay maansadiisana waxa ka muuqatay qoos iyo xataa inaanu rajo dambe ka qabin inuu qofaan iyada ahayn jacayl u qaadi doono gabadhaasi waxa jiray magac uu ula baxay oo xataa intii aanu u sheegan jacaylkiisa uu ku oran jiray heblaayo ayaan jecelahay isagoo aan marnaba dareensiin inay heblaayadu iyada lafteeda tahay waa magac aan iska sameeyay anigu laakiin iyada aan ugu talagaloon u bixiyay iyadu marka way taqaanay magaca Naruur laakiin Naruur waxa ay tahay inay iyada taymeysan Cabdishakuur inta kadib uu guursaday oo gabadh kale ayuu la aqal galay balse reerkaasi uma raagin oo way kala tageen xaaskii balse jacaylkii gabadhii aanay iscalfan ee uu caruurnimadii u qaaday weli qalbigiisa kama go'in jacayl intaas la eg kii marka isoo maray mid la eg inuu xataa isoo mari doono ma filayo runtii dadkaas uu ku tunjileecsado inay yar baadaydo cidlu ka helay kaasuna meel cidlu iga helay dabcan gadaal xilliga gadaashada uu guursaday laakiin haddii la isu kay barbar dhigi lahaa ma filayo inay xataa isu dhawaan lahaayeen waan gartay marka gabadhii waa kala tagteen sidaan filayo wax aruuri meed dhex maray wiil baa jooga 3 jira maasha Allah muddo ayaa laga joogaa markii ay xaaskiisa kala tageen gabadhii uu jeclaadayna sida igu maqaalo ah waa la guursaday hase ahaatee Cabdishakuur mar walba waxa ku soo markaca caashaqii yaraantii marka aad eegto kalinimadan ee aragto haddana
inaad u baahan tahay inaad nolol samaysato ee haddana qalbigaagii uu jacayl cagadhigta aad ka weydo ama aad aragto dad fara badan oo jacayl ka sheekaynaya iyo adiga boogahaagii ku gaarka ahaa yaa damqada habeen dhexdeer ahaa marka sanadka 2016 ahayd yaan anigoo mareegahan YouTube-ka iska barbaaraya waxaan arkay dad jacayl aad uga cabaadaya qiroonayo ooyaya gabadh waxaan arkay wallahi hadda runtii magaceedii ma xasuusto waxaan malaynayaa inay marka hore Facebook live laga keenay waxa YouTube laga soo geliyay arrimo jacayl iyo dad ay la soo hadlayaan oo fiber laga soo wacayo iyadoo meeshii fadhido oo live saa ugu jirto oo jacaylkii baa la iska xog wareysanaya waxa xusuus mudnayd gabadha soo wacday oo runtii xanuun aad u fara badan oo kaygii u eg bay u sheegtay inay wiil jeceshahay in muddo ah umuurahaygii seexday unbay soo kaakicisay hawshaasi marka gabayod la yidhaahdo markabkii jacaylkaan tiriyey habeenkaa runtii maxaa tiri dadba dunida wuu wada maraa maalin hoog badane qalbigaan maxaabiisay ee aan maxkamadeeyey iyo muhasho aan seexiyey soo markiciyeyna markabkii jacaylkeen wadee mawjad igu tuuray soo markaan ismoodsii dhahaba layma maqashiiyo inkastoo muddadu dheer toon tobagu soo mooday dhaqankana maroor ay ku tahay xaasrag magacowgu afkii maarmi waayaha ifaray gocasho maansoo caashaqu markuu mada yihiin lagula miisaamin waa masiibo nololeed ninkii soo maraa garane imaanshee haddii uu qof dooq muleensaday malab iyo hadduu dacar lahaa caashaq muudsaday casar mooda galabeed dhulkoon weli madoobaanin waxaan dib kugu celiyey gabadhii aan kuu sheegay xilligii aan jacaylka u sheeganayay dib yaan usoo go'day gabadhii dugsiga sare markaad ku jirtay naruuro inaan waktigii iyo wiilkii warqadii aan u dhibay wixii oo dhan inaan maas kusoo sawireen yay noqotay wuxuu yidhi casar mooda galabeed dhulkoon weli madoobaanin bashqad midable wiil yari markuu midigta ii saaray midhihiisa waan sii ogaa geedka aan muday masallaha inuu wiil u yaal yaan maqloon helay inay gabadh macnaha dee wiil jeceshahay yaan sii ogaa masalaha inuu wiil u yaal yaan maqloon helay anigoo madluun oo warkaan sugi malaynaya murti hadal hebla waayadii may isoo tiri calafkii malaykiiyo ku dhacay ceel mugweyn dhimeeye wax walba oo muhiim ah haddaad jeer mulkuyi weydo waxaa looga maarmaa sidii uun midhkuu tarinay ruux malagu qaatiyo haddii maydba la ilaawo macaluusha qaarkeed baktiga looma maarsada ee mintid oo istiibsii naftan ugu miraabayay mag inay u qaadato lawaasamik waa maal waa mucjiso jacaylku inuun marin habaabaynin ismaqiiq inuun kaaga harin ama ismaaweelin kuman mayl naftii aan is-iroga masaafays dee jacaylkii goday igu hadhayban Canada intaan ka soo carray ama ka soo tagay aan Canada imid weli iga hadhay labaan la yaabanahay xasuustiisa waa mucjiso jacaylku inuun marin habaabaynin ismaqiiq inuun kaaga harin ama ismaaweelin kuman mayl naftii aan isdhiga uga masaafayso weli waysagaa mayracay ruuxda maamulo muraayadu siday ii jabtay aan u muhan waayey ee aan gayaan uga murbaxay guurna uga maagay inkastoo muhiib iyo masaal miyir la haasaaway markii jacaylku kaa xumaado si aad bal u ilowdo ama aad u guursato dee kuma gabdhooda madaxa la geli dabdamis baad raadsan markaas weliba haddii dabaan ku baktiin waayaan inkastoo muhiib iyo masaal miyir la haasaaway maydi waayey raadkaan lahaa waan masaxayaaye igu maran maraa waaxidkii maanka layliyadaya weli macnaha kii waa lagu salan yahay marka gabaygaasina kaa sooxayo arrintaas yaa keentay cabdishakuur qorane marar badan ayay dhallinyarada saaxiibadiihii ka dalbadeen inay israacaan oo ay hablo u haasaawo tagaan amaba waxaa la weydiiyaa maxaad u guursan weyday bal muxuu kaga jawaabaa qasab bay noqotay ilaa lagu weydiin lagu dayn maayo maxaa haweenkii aadan u shukaansanaynin maxaadan u guursanaynin waay baa lagu oranayaa aad iyo aad marka waxay noqonaysaa qasab in marka qaarkood aad sheegto marka inta badanna hadalka waxa lagu yidhaahda waxa tixda lagu yidhaahdaa kana hari og runtii kana qooban naawilaada aayaha qoftii uu nabdigu raacay sidaan ugu nayaayiray qoftii iigu nixi weyday qoftii aan nashaad uga tegiyo jawiye neecaw leh qoftii nabad la sheegiyo iyada aan nasriga mooday nooc walba qoftaan ula hadleen iigu naxariisan qoftii aan nac oon diid isyari een iskala noogay nalkii ii ifaayee baktiyey nuurkii iga laalmay naf jecel naftaydii jeclayd ee ku nabay dooqu qofta aan nitaaqooyinkee dib u nidaamoodo xusuus beerku naasnuujiyo soo noqnoqonaysa soo nafistay markii aan dhahada dib uma noolaato de markii aan wax shukaanso ama aan wax guurso ama aan tii xusuustii baa weli nool oo
xusuus dheer ku naasruujiyo soo noqnoqonaysa soo nafistay markii aan dhahaba dib uga noolaato marka taasina intaasay ku timiday marka in adeer bahalku waa dhib badan yahay inahaas waa badan baan kasoo maray inkastoo uu cabdishakuur inoo sheegay inuu qalbigiisa lingaxday oo gacaltooye haween uu gasariir ka qaaday oo gabadhii uu gaclooday mooye mid kalena aanay laabtu doonayn haddana ma moogana ereyadii ahaa haddaan raggu dumar lahayn dib jir buu noqon lahaa mar kasta uu shaqo ka soo rawuxo wuxuu ii sheegay ee uu ka soo noqday gurigiisa islamarkaana uu ka war helo in shay kasta halkii uu subaxii saaka kaga tegay yaallo inay maankiisa ku soo dhacdo war go'an ahayna gabadh guurso maraan imid shaqada intaa ka imid anuu imid gurigeygii oo sidiisii ah oo shukumaankiina uu isdul saaran yahay go'ii iyo bustihii weelkii asaaka ku quraacday meeshii maxaan ku dhahay wadalkoo sida u wasaqaysan baan waxaan isla hadlay oo runtii aan tiriyey tixdan ah oo dhowr meeris ah waxa guurka loo diidana waan ku garan waayey halkana in badan lagu guursan wallahi uma malaynayo uma malaynayo markaa intii baad markaa maanse kooban ka tirisay maxaa tiri waxay ahayd waxay ku bilaabatay sariir geegsan guri uunsan iyo hilib la geedeeyey gogol wehelle gacaltooye iyo raaxo garab taala iyo gabadh la jiisiba hadday laabtu goconayso waxa guurka loo diidano waan ku garan waayey intaasun baa hayadoo runtii markaa qalbigayga kusoo dhacday in adeer marka waa la iska cadibaya ilaahay umuuraha sahlo aad iyo aad may amuuraha allaha saalaad hadal ku soo goysay annaguna waxaan leenahay aamiin aad buu u mahadsan yahay cabdishakuur qorano cali oo ku magac dheer af magaaxshe kolley cabdishakuur maansooyinkiisa intaa kaga bogan mayno oo barnaamijyada soo socda ee cawayska washington ayaynu ku maqli doonaa yahay cashaquu ka gaday qof kale caqligeediye xusuustu casuumane dadaawehe moodaysay dadan wehel moodaysaa hacaban waxaan kugu idhiye hacaban ilmada cesho baan ku idhi abtanaa culay baan ku idhi cawana tasho baan ku idhi cawana tasho baan ku idhi hacaban waxaan kugu idhiye hacaban